السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان ولا له يوجر يوتيوب كيغا سو دوادا مر والبا قعم فرن وجه فرن قلبي فرن ولا شيء عاشلادن ما شاء الله سو دوادا انت هورو وجرت waxaan leeyahay waa kuma santiin jisaaka la khayran laagiina sheerkiina commentigiina subscribe-kiina dhamaantiin waa kuma santiin inta cusub hada noo soo galaysan waxaan leeyahay soo dhawaad walaalahayga subscribe-ka like commentiga insha Allah ka soo bixiya waa dhiirigelintiina dhamaantiin meel walba aad ku nooshiin Ilaahay idinku nabad yeesho Soomaali weyn inta islaam ummadna Maxamed ah waxaan leeyahay walaalay waa ma santiin jisaaka la khayran sida daawashada wacan commentiga fiican subscribe-ka fiican iyo like mar walba ay soo saartiin walaalaha dhamaan waxaan leeyahay waa mahadsantiin jisaaka la khayran daawasho wacan oo wanaagsan walaashin maanta maxay idin wadaa wax kala ma ahan waxaan ka hadlayaa insha Allah maxay walaashin maanta idin wadaa caashaladan maanta waxay ka hadlaysaa insha Allah baraha bulshada midka qabsaday ninka Soomaaliyeed oo 4 naagood uu guursaday 4 naagood iyo asagaba meesha ka soo hadlayaan insha Allah naag guursaday oo afar xaas leh asaga ugu maharay hortiis jira soo sameeyay gadaashiis jira soo sameynay laakiin maxay ku kala duwan yihiin maxayna dadka social media u wada qaateen oo baraha bulshada labada maan zaid looga hadlay maxay tahay waxay tahay mid waa la yaabay mina normal ila noqotay maxay tahay marka waxa aniga aan la yaabay midana normal ila noqotay ani xaqeyga okay mid waxa aan la yaabay waxay tahay naagta 4 naagood mid weyn oo xaaska koowaad ah waxay dhahday 2015 ayaa la ii guursaday 2015 ayaa la ii guursaday ninkeyga markuu ii guursanayay wuu ii sheegay inuu naag iga daba keen doono intaan la is guursanin guriga intaan la isla tagin u sheegay inuu naag la guursan doono ee ayadan raali ka noqotay waxaan suurtagelayn wadaas waxaan maskaxda bini'aadanka ee qaadan weysan taas diinta islaamka inay ogoshahay 4 qofood hadaad awoodid waa hadaa awoodid ina nolol fiicna mid hadana waxtan labada waa ina xaqooda asintaa ninka ragga markuu guursanayo oo naagta 4 naagood Ilaahay wuxuu u baneeyay ninka awoodo ko ninka oo xaqooda simayo oo mid kala magaciisa u eexanin nin Soomaaliyeedna xashada kuma fiicno abaayo kolay Ilaahay ragga 4 uu Ilaahay u baneeyay laakiin anagoo haween ah damiirkeen horta ma siinay haddana nin aan markaas aan guursanay nin intuu markuu naagta guursado oo muddo la joogo oo life la qaato oo naag kala raadsanayo uu leeyahay naagtana raadsaday dhahay waa la arkay laakiin markaas soo galaya la ii sheegay waa doqonnimo iyo daciifnimo adiga qabtid maan zaid looga hadlay walaalay waxaan leeyahay 4 gabdhood Soomaaliyeed ee ninkooda social media soo dhigay ee leeyihiin waa ku faraxsanahay reerkeena aniga markaas soo galayay aan ninkeyga markuu ugu horeysay aan guursaday 2015 aheeday dhahay gabadha weyn waxay dhahay wuxuu ii sheegay in naag la iga daba keenayo wuxuu ii sheegay inuu naag iga daba keenayo tii labaad waxay dhahay wuxuu ii sheegay inay mid iga horeyso midna iga dambayso tii saddexaad waxay dhahay inuu laba iga horeyso mid iga sii dambayso tii ugu dambayso maxay dhahday inay 3 iga horeyso aan ku afariyay gabdho Soomaaliyeed tihiin gabdho wanaagsan oo igtihiin I don't know say wax u jiraan, laakiin damiirkaada waxaan siinin
inaad dadka u sheegtiin waa laga fiican yahay. naaga isla nahay, haweena isla nahay, waxaan nahay waa la og yahay. haweena og waxay tahay qalbigaada wuxuu ku jiro. haddii maanta calooshada la dooxo, haddii la dooxo wax kale lagama soo helayo. qalbigaada kuma faraxsan, waa la ogyahay. marka social mediaha BBC-da wariyaha markuu idiin imaanayo oo warkaan idinka soo duubayo, waxaa laga yaabaa inuu idinla soo dardaarmo ninka idinka idin qabo. muujiya farxad, muujiya inaa isku faraxsantihiin, muujiya inaa ani hadalkaas idin soo dhahay, muujiya saas haddii la idin soo dhahay. allahu aclam kulli horta. gabdhaheena Soomaaliyeed nin dhiig leh oo damiir leh oo dareen leh saas ma u hadlaayo. okay, waa noqoteen dad, waxaa noqoteen isku faraxsan, is og, isla joogo, midda kala caawinayso. beri adigoo calaacalis ama beri adigoo dhibaato ku haysato social media ha iskeenin, hana soo istaagin. maanta farxadda aad muujiseen gabdha aad u wanaagsanaa tihiin, reerkiina allah idiin barakeeyo. laakiin social media intaad la imaadin dadka inaad u shaacidin oo ereygan aad la soo istaagtaan waa laydinka ficnaa, sharaftiina kuma jirin. because waxaa iska dhigtay dad laciif ah. dad laciif ah ayaa iska dhigtay. mid gurigeeda eedoo ku jirta aa ugu tagtay in lagaa daba keena waa is og tahay. because adaa lugaada ku raadsatay nin naa qabo. berina asagan inuu mid kale kaa daba keena waa is og tahay. laakiin wuu ii sheegay, kaama dhegaysanayo, mana kaa ogolaanayo. naag kasta naag ku farxayso. naagta hadda bahyarada tan mid ugu dambeysa ay tahay. haddii beri maanta mid space u heli lahaa ninkaas ha lagu soo daraday dhaho ma ogolaanayn. laakiin waxaan soconayna annaga hanoo sheegin. naag kastoo ayadoo ku faraxsan inaa laga daba keenaa, ama ha joogto ama ha ku baxdo. haddaan mid adig ugu gashana waa lagaa daba imaanaya, shaki kuma jirtaas. mana lays weydiinayo in lagaa daba imaanayo. haddaa adiga lugahaada aad ku raadsatay nin naag qabo, adigoo mid banaan madax banaan ah heli kartid aad ka daba tagtid, waa lagaa daba imaanaya. waana is og tahay asagoo kuu sheegin aan lagaa daba keena because adaa ugu soo gashay shalay. tii hore joogtana way kugu farxaysaa because adaa qalbiga ka dhaawacday. in tookada lagu dhaawaco diyaaray u tahay taas. markaan anaga yaana loo sheegin, yaana la dhihin. markuu horey ani waxaa maskaxdeeda qaadan weysa oo hadalkan iga soo bixiyey waxay tahay, markii hore midda weyneed waxay dhahday markii hore isguursanayni oo kow aan khalgalayni isaga ii sheegay. waa midiisa ugu horeysa. tii dambana saasay dhahday, tii yareedna saasay dhahday, tii dhexda ku jirta saasay dhahday. wax macquul ah la imaan social media. waxaan soconayn hana la imaan. naag kasta ayagoo ku faraxsanayna mid laga daba keena waana is og yahay. tii ogeedna waxay ku ogaanaysaa waxay tahay waa inaa adiga ka daba tagtay naag. adigoo ninka naag qabo adiga haddaa ugu gashid waa lagaa daba imaanaya. ku seexo waana kusoo kac because su tii horeb loo xishmeyn waayo aadna ku taasho. dariiqa taas loogu tagay aadna maraysaa. taas waa kaa yeela. laakiin waa ku faraxsanaa, kaama dhegaysana walaalaheed. idinka dhasaa u dhantiin idinkama dhegaysana taas. kala daawada gabdhaha hal kasta waxay ku hadlaysa magacayga waxaa Maxamed Xuseen Aadan. xaajigayga waxaa is guursanay 2015kii bishii afraad. maasha allah waa ku faraxsanaa, waana ku saacidaya inuu xaafis kale ila soo guursado. anaa ku taageeraya wallahi inaan reerka lasoo wada dhammaystiro oo afarta uu jiro raallihan ka ahay. السلام عليكم. magacayga waxay jaamaca waaye. ana waxaa ah xaaskii labaad, waana ku faraxsanaa. gabdho kale inay iga daba imaadaan waa ku faraxsanaa. aniga xaaji waxaa isguursanay 2018kii, waana ku faraxsanaa. wuuna ii sheegay inuu laba xas leeyahay, caruur ay u joogto maasha allah. sidaasaana kusoo galay. inay mid iga dambeysana waana ii sheegay.
maasha allah waan ku soo dhaweeyey waana ku taageeray waxaan gabdhaha u baaqayaa in ay dhinaca diinta fiiriyaan oo midee haddii uu qofkii awood leeyahay oo ninka labada xaas ama saddex xaas haddii uu guursado oo awoodeeda kasoo bixi karo in lagu taageero ilaahay baa ku mahadsan isku maashaa maanta halkaan isugu nimid alxamdulilah aniga magacaygu waa naxwa cabdicasiis guurkaygu wuxuu dhacay 2019kii bishii 10aad 25teedii October 25teedii waa dumarka iga horeeyay waan ku faraxsanahay xaqiiqatan sida aan dareemayo maxaa yeelay annaga oo wax xiriiro markaa dee inaan museyga aan isqabin unbay isoo wada xiriirinayeen dhammaantood dabcan qofku markuu kusoo xiriiriyo iyo markuusa kusoo xiriirin waa dareemi kartaa awoodda ka dhexaysa labadaas marka maasha allah saddexaas inay ka horeyso inay qoys faraxsan yihiin inay maashayga ku faraxsan yihiin intaba waa laga sheegay waana ku faraxsanaa markaan soo galayo maadaama ay yihiin qoys faraxsan dee noloshooduna ay tahay nolol powerful dabcan anigana sidaas sidaa dareemaysiinba xiriirkanagu waa xiriir aada u wanaagsan gabar markay wax ku dhacaan ama ay xanuunsan tahay ama ay umusho ama ay dee xanuun kale uu iska jiro gabdhaha kala garab siiya caawiya dhinac walba faamiligeenu waa faamili isku farax faamiliga hadduu isku faraxsan yahana anitaan waxaa dhacaysa in ay mar walba isgarab taagnaadaan garab banaani ma jirayso waxaa jira baraa bulshada in qoyskeena aada iyo aada leeyahay xaasiskayga waa kana 40 naagood ani aan qabay waa isku faraxsan yihiin horta gabdhahaas haddaan runta idiin sheego waxay qabaan low self esteem waxaa laga wadaa wax kale ma ahan qof aan kalsooni qabin oo isaga isku kalsooneyn inuu nin kaligiisa ah uu heli karo ee waxba ka ogeyn gabdhahan iskuma kalsoono naaga isku kalsoonina saas u dhaqmayso because ninka marka maalinta aan guursanayay midda weyn horta waxay dhahday markaan guursanayay uu ii sheegay inuu saddexda naagood kale la soo guursan doono naag la iga daba keeni doono in naag la iga daba keeni doono uu ii sheegay abaayo kolay ilaahay ragga afar uu ilaahay u baneeyey laakiin anagoo haween ah damiirkeena horta ma siinayo haddana nin aan markaas aan guursanayo nin intuu markuu naagta guursado oo muddo la joogo oo lifeka la qaato oo naag kala raadsanayo uu leeyahay naagtan aan raadsaday dhahay waa la arkay laakiin markaas soo galayaa la ii sheegay waa doqonnimo iyo daciifnimo adi aa qabtid aa kugu wacan marka koowaad idinka dhasaa u dhantiin inaad dad fiyo aad tihiin inaad dad waala aad tihiin aan idin kala bixin weysana because markaan leeyahay waan is ognahay haween haddaan nahay ragga iyo haweenka isku aqli ma ahan isku fahan ma ahan isku damiir ma ahan haweenka ilaahi wuxuu ka beeray kii maseer ahaa rag maseerana wax ka xun maba lahaba laakiin haween iyo rag markay soo kulmaan haweenka ama maseer lagu tilmaamaa qof weyn baa noqdayoo hadda kadib kuuma dhalaay mid wax kuu dhalaysan kuu noqotay ninkii inay naag kale ku daraan markay noqotay kabacdin meeqa madaxooda sakiin geliyo xiire way badan yihiin because damiirkaada ba siin karin ninkaad adoo fiirinaysa naag kale inaad u sii daysid macdala iska dhaaf adigoo cusub oo new ah midna iga horeysa aan ogahay haddana midii labaadna aan ka daba tegaya ama anigaan ugu horeeyay aniga magaciisa waa laga daba keenaya la dhahay waan dhegeysanaya waana ku faraxsanahay quraan saara u baahantiin gabdho runta haddaa idiin sheego saan ku fiyo wadin laba Allah idiin barakeeyo
haddaad idinku isku faraxsan tihiin anaga dambi inaan idinka galna ma rabno dad ilaahayna wuxuu asaga ninkana nin ilaahay wuxuu asaga ilaahay u baneeyo waaye looma diidano laakiin wax macquul ah social media hala imaada kow maxaana loo buunibuuninaa maxaa magaciis meelaha loogu haysta haddaad leedihiin maxaa laydinku haysan waa idinka bas soo shaac dhigteena yaa idin ogaa haddaad gurigiina nabad u fadhin laheedeen afarta haddaad jabka waaba qabtiine jabkin inaad iska qabtiin gurigiin la fadhisiina aheedeen inaad soo dhex dhigtiin social media hadday iskeentiin waa la idin ogaana qoyskeena aad iyo aad loogu mashquulay annagana wax oo diinta ka baxsan maana suubin shacabkeena soomaaliyeed waxaa ugu baaqi lahaa inay mashquulka naga dhaafaan maadaama anaga diiniyan wuxuu ilaahay nafara aan suubina sunnada rasuulka aan suubina wax lagu mashquulo maana suubina marka shacabkeena soomaaliyeed waxaan dhihi lahay tartiib ana laga dhaafo buubuuninta iyo wax la wado anaka wax qof lacag nagu siiye malahan reerkeena waa ku faraxsannahay xaajiga wuuna qabaa been ma sheegeeno dada qaarkood waxay leeyihin iskoolee waaye qaaraa leeyihin adeerkood waaye adeerkeena ma social media anaga meel kasta anaga lagu soo qaatay social media yaa ku keenay adaa iskeenteen idinka iskeenteen yaa idin keenay ninkiina idin soo shaac bixiyey inuu soo shaac baxo daraaddeed uu usoo galay oo idinkana jalbaabo intuu idin soo xiray wuxuu leeyahay kaale soo istaagay waxa idinka duubay inaad raaliyo tihiin raaliyo aad tihiin waa laga yaaba raaliyo waa noqon kartaa raaliyad ma noqon kartid idima dhahayo laakiin adigoo raalli ah oo raallinimadaada is og tahay haddana calooshaada haddii la dooxo aan ogolaanaynin in naag kale lagula guursado iska dhaafe intaan dariiq la soo istaagtid aad leedahay magaciisaha raalliya ahayo ani markii hore uu iisoo sheegay ani markii hore saas u dhahay ani markii hore waxaa la dhahay magaciisa naagan kaa daba keenaa naag damiirkeeda joogo ma sameynayso quraan saara u baahantiin sad afartinba quraan saara u baahantiin inuu quraan idinku soo aqriyo wax oo idin gediyaa laga yaaba ninkan inuu abiyus ugu jirtina laga yaaba oo idinka keenaya magaciisa waa ku faraxsanna inaad iska leedihiin aan qalbigiinana aan haddii dib loo dooxana aan ficneen marka waxaan leeyahay ummadda ha rafaadsanayna ha jaa-ifaysanayna ha dhihina idinka social media waana nagu wax idinku mashquulayo malaha idinkaa iskeenteen haddii la idinku mashquulana idinkaa iskeenteen haddii la idinka soo hadlana idinkaa iskeenteen haddii la idin soo caayana idinkaa isku keenteen ninkiina idin keena adiga iisoo hartay ninka naftiisaan la hadlaya intaa ku faan lahayd adiga madaxaasu u yaala arfarta mid daawo kaa maris ma la waayo mid iclaanka kuu maris ma la waayo because maskaxdooda ma fadhisaba dadaan fadhin maskaxdooda fadhin waa naagaha guriga ku haysatid adigana isku kaa dhigayaan inaad fiican yihiin oo maskaxdooda ay juusta ay tahay u malaysaa naaga madaxeeda juusta ee maskaxdeeda markay naagta ninkeeda way naashataa way qurxisataa way wanaajisaa way ka soo shaqaysaa haddaa maanta adiga nin isku toosana ahaan lahayd alla leeyahay way isku faraxsan yihiino ninkii ka dhexeeyey dhexda gashteenoo ee kasoo shaqeeyeen haddii la dhihi lahaa waxbay ahaan lahayd adaaba madaxaada ku kor caddaaday naftaada adaaba madaxaada ku kor caddaaday walaalkee maxaa ku faanay markaas midku soo xasuusato oo madaxaada iclaan kaa marisaa la waayo midku soo xasuusato oo saan ma ahaan saan wax ku geli ku dhahaysa ma ku jirtaa hadday kugu faraxsan yihiin saas kuguma fiirsan lahayn waa kaasoo shaqayn lahay markaasay ku keeni lahayn social media aad ku faan lahayd marka waxaan ku leeyahay gurigaada hadduu kuu dhisan yahay afarta aad ku haysato ay run tahay allah kuu barikeeyo aqligooda iyo damiirkooda siiyey ama abiyuus ku hay ama wax ku sameey ama dad maskaxdooda juusto ha ahaato ama dad maskaxdooda lagu jiro ha ahaato sidaad ku hayso ee social media ka fadhiista adiga gabdhahaada yaana la dhihin social media maxaana loo keenay maxaana loo haystaa adigaad balansatay ama adigaad soo shaac bixisay inaad afar oo kusoo faantay BBC di markaas ay kusoo duubatay saasa social media kugu imaadeen markaan gabdhahaadana yey soo dhihin maxaa social media nagu haystaa
guurkana lama diidano